بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkani waa janalka aan YouTube-ka aynu ku leenahay National TV. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo janalka subscribe inoo saar daawada haddii casigeygii tixgelisanaad baan kaaga mahad celinaya markana ku soo dhawaada wararka uu idin hayo National TV. qodobada ugu waaweyn waxa kamid ah maamulka gobolka Hiiraan oo warka soo saartay amniga beledweyne xilli doorasho ka socota halkaasi. faahfaahinta qodobkani ayaan barnaamij wareedkayaga inta aan ku guda jirno ku faaqidi doonaa. Puntland oo maanta isku keentay saraakiishii iyo ciidamadii ku dagaalama Boosaaso xalna ka gaartay ayaa iyana idinla wadaagaya. Sheekh caan ka ahaa gudaha magaalada Hargeysa iyo 13 qoyskiisa ahaa oo nolol iyo geeri lagu laayahay. dhacdadani ayaa argagax ku beertay dadka ku nool magaalada Hargeysa. xogo sir ah ayaa soo shacbaxaya waan idiin soo baahinaya. iyo gudoomiyaha guddiga xaqiijinta qoondada haweenka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ka hadashay boobka lagu hayo kuraasta haweenka iyana waa daawan doontaan. qodobada iyo qodobadii nagu soo kordho ayaan barnaamij wareedkayaga ku faaqidi doonaa. balse ugu horreyn waxaan kaa codsanayaa inaad janalka subscribe inoo saartid muuqaalkana like garee oo share garee si uu u gaaro saaxiibo fara badan si aan u helno saaxiib sidaada oo kale u qalbi qurxoon. mahadsanid. qaybta hoose ee commentiga aragtidaada qurxoon inoogu dhaf oo inoo muhiimi. markana ku soo dhawaada qodobadii aad hordhac ah aad ku daawateen oo intaasi ka faahfaahsan. inu ku bilownay daawadayaasha aynu jecelnahayo. kadib markii maalmihii la soo dhaafay magaalada Beledweyne ay ka jireen shaqooyin iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa maamulka gobolka Hiiraan waxa uu maanta war ka soo saaray amniga magaalada Beledweyne. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Hiiraan Axmed Cismaan Cabdulle Axmed Inji ayaa sheegay in amniga magaalada Beledweyne xilligan uu yahay mid aad u wanaagsan oo dhibaato aysan ka jirin. mudane Inji oo la hadla qaar ka mid ah ergada dooranaysa kuraasta golaha shacabka wuxuu sheegay in magaalada Beledweyne ay ka dhacayso doorasho nabdoon oo dadka loo doorto si xor iyo xalaal ah. wuxuu hadalkiisa intaasi ku daray in si weyn loo adkeeyo amniga magaalada Beledweyne oo ay ka socdaan doorashooyinka isaga oo cadeeyay in xilligan aysan wax culays amni ka jirin magaalada Beledweyne. magaalada Beledweyne ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa lagu arkayay maleeshiya beeleedyo hubeysan oo la socda musharaxiinta iyo kuwa ka soo horjeeda in kuraasta golaha shacabka ee taala Beledweyne loo xiro musharaxiin gaar ah. isla wararkayaga ayaan daawanaysaanay markan haddii ayna eegnana wararka ka imaanaya Puntland. waxaa xarunta madaxtooyada Puntland ee magaalada Boosaaso ee gobolka Bari kulan ku yeeshay saraakiisha kala hogaaminaya ciidamada ku dagaalama magaalada Boosaaso bishii December ee sanadii tagtay ee 2021 iyo dhammaan saraakiisha kala duwan ee ciidamada Puntland. ujeedka kulankan ayaa ahaa sidii loo dhameystiri lahaa loogana gudbi lahaa khilaafka sababay gacanka hadalka ee ka dhacay magaalada Boosaaso ka oo dhex maray ciidamada Puntland iyo kuwa PSF-ta. waxaana shirkan gudoominayay wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Maxamed Galan. saraakiil ka kala socda dhinacyada ciidanka sida PSF, BMBF, Police iyo Daraawiish oo kulankan goobjoog ka ahaa ayaa ku balamay sidii wada shaqayntii jirtay dib loogu soo celin lahaa loogana gudbi lahaa xaaladaha ciidanka dhexdooda ka dhacay. wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Maxamed oo shirkan kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in shirkooda uu ku soo dhamaaday guul isla markaana dhammaan ciidamadu ay ku wada heshiiyeen in ay ka wada qayb qaataan sugidda amniga iyo la dagaalanka xarakada Al-Shabaab iyo Daacish. waxa uu u mahad celiyay dhammaan saraakiisha kala duwan ee ciidamada isaga oo ka dalbaday in ay ka gudbaan khaladaadkii ka dhacay magaalada Boosaaso lagana wada shaqeeyo sidii si isku mid ah u sugi lahaayeen guud ahaan amniga deegaanada Puntland. dagaaladii ka dhacay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa waxa uu salka ku hayay kadib markii uu madaxweynaha Puntland
Siciid Cabdilaahi Deni xilkii ka qaaday agaasimaha BSF-ta Maxamuud Cismaan Diyaano, balse uu ka soo horjeestay waxaana dagaalkaasi iyo in agaasimaha BSF-ta xilkiisa lagu soo celiyo xal laga gaaray ama xal ku gaareen isimada dhaqanka gobolka Bari. Isla wararkayaga ayaa daawanaysaane qaybihii dhexe ee barnaamij wareedkayaga ayaan isla soo gaarnay. Markana wararka ka imaanaya magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in Sheekh Aadan Cabdiraxmaan Sunni la waayay rag iyo ruux halka uu ku sugan yahay. Sheekhan ayaa waxaa lala waayay qoyskiisa oo ka koobnaa 13 qof iyadoo guriga ay deganaayeen oo la tagay laga waayay. Gaari uu lahaa kaliya ayaa Sheekh Aadan Sunni loogu tagay guriga. Xiriir la sameeyay taleefanadiisa lama heli kara ayuu leeyahay sida ay noo xaqiijiyeen ila sheekhan ku dhadhow. Waxa sheekha iyo qoyskiisaba ay deganaayeen xaafad loo yaqaano Masallaha magaalada Hargeysa, lamana oga in laga kaxaystay hoygooda qoyskaasi iyo in iyagu iskood isaga tageen magaalada. Dhowr jeer ayaa la xiray Sheekh Aadan Sunni waxaana inta badan uu ka hadli jiray arrimaha siyaasadda Somaliland. Xiriir la sameeyay laamaha amniga Somaliland ayaa waxa ay ka gaabsadeen in ay ka hadlaan arrintan sheekha iyo qoyskiisa la waayay, ayna wadaan baaritaan ku aadan arrintaasi. Dad fara badan oo deegaankaasi ku nool ayaa aad ugu walacsan dhacdadani argagaxa leh ee markaasi sheekhan iyo 13 qoyskiisa ka mid ah hal mar la waayay, iyadoona sheekha iyo qoyskiisaba lagu haynin nolol iyo geeri. Wararkan waxay ku soo kordha barnaamijyadeena dambe iyo wararkeena soo aadan ayaad ku daawan doontaan. Markana gudoomiyaha guddiga xaqiijinta qoondada haweenka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Marwo Batuule Axmed Gabale ayaa ka hadashay dhameystirka doorashada golaha shacabka iyo boobka loo geystay kuraasta gabdhaha. Batuule Axmed Gabale oo sidoo kale ah gudoomiyaha ururka haweenka ayaa tilmaamtay in la ogyahay kuraasta gabdhaha ee la boobay ama loo boobay ragga sida ay hadalka u dhigtay. Sidoo kale waxay intaasi ku dartay in ay aadi doonaan dhankaas si wax looga qabto boobka loo geystay kuraasta la qoondeeyay amaba loo qoondeeyay haweenka Soomaaliyeed. Marwo Batuule oo hadalkeeda sii wadata ayaa shaaca ka qaaday in ay tani muujinayso in laga gaabiyay heshiiskii hore looga gaaray doorashooyinka dalka. Waxaa muuqata in laga gaabiyay heshiiskii sharciyadii lagu heshiiyay ee doorashada. Sababta aan u rajabeelin waa in aan haysano sifo sharci ah oo aan ku helino xuquuqdeena, sababtoo ah kuraasta gabdhaha laga boobay waa kuraas la yaqaano, ragga loo boobana waa la yaqaanaa iyo tiri gudoomiyaha guddiga xaqiijinta ee qoondada haweenka. Waxay kaloo intaasi ku sii dartay in 56 kursi ee dhiman loo baahan yahay in 30 ka mid ah laga dhigo qoondada haweenka si loo xaqiijiyo 30%. Doorashada golaha shacabka Soomaaliya ayaa haatan maraysa gabagabo, waxaana ilaa iyo hadda soo baxdaan 44 gabdhood iyadoo ay tirada guud ee haweenka laga rabo 82 gabdhood. Haddii aan soo qabtana qodobka ugu dambeeya ee barnaamij wareedkayaga, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa shir gudoomiyay kulanka golaha wasiirada oo ka qabsoomay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Madaxweynaha ayaa ugu horeyn golaha ugu warbixiyay xaaladda amniga xilli ciidamada ay ku howlan yihiin sugidda amniga deegaanada Jubbaland, iyadoo madaxweynuhu uu ku ammaanay ciidamada sida ay diyaarku ugu yihiin badbaadinta iyo ilaalinta shacabka xilli dalka uu doorasho ku jiro. Dhinaca kale, madaxweynaha waxa uu golaha warbixin ka siiyay doorashooyinka ka socda guud ahaan dalka iyo sida gaarka ah Jubbaland, isagoo uu sheegay inay socdaan dadaallo kala duwan oo ku aadan sidii loo dhameystiri lahaa xubnaha xildhibaannimo ee deegaan doorashadoodu tahay Jubbaland. Intaa kadib, wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Jubbaland ayaa ka warbixiyay xaaladda abaaraha ay ka sii daraya iyo xiriirinta howlaha gargaarka. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in wasaaraddu ay isbuucyadan soo socda gurmad gaarsiin doonto qoysas gaaraya 97,000
oo qoys oo isugu jira raashin iyo lacag iyadoo toddobaadkan ay wasaaraddu qaabili doonto wafuud caalami ah. Wasiirka waxa uu sheegay in aaladda fogaan aragga ah uu kaga qaybgeli doono madasha arrimaha bini'aadanimada Midowga Yurub, halka uu kaga warbixin doono arrimaha abaaraha ee ka jira deegaanada Jubbaland. Ugu dambeyntii aad baan kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan. Haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biiro channelka subscribe inoo saar, muuqaalkana like garee oo share garee, qaybta hoose ee commentiga aragtidaada qurxoon inoogu dhaaf waa inoo muhiim. Inta aan muuqaalkan kiisi xiga ku kulmi doono Rabbi idinkii waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo.